jasiiraddan aadka u quruxda badan ayaan ku noolaan doonaa muddo 3 cisho ah. aad ayay u qurux badan tahay, meel cidlaana way ku taallaa. asxaabteedu way iska laaban doonaan markay geeyaan jasiiradda. aniga ayaa challenge-ga sii wadi doona ilaa 3 cisho ka dhammaanayaan. dib ayay iga laabteen asxaabtaydii, haddaba aniga iyo keligay. aad ayay u xanuun badan tahay dhab ahaantii, cadceeduna aad ayay u kulushahay. wax dhar intaasaan sitaa iyo qalabkaa yar oo aan isticmaali doona intaan challenge-ga ku guda jiro. kana waxaan ka wici doonaa haddii aan wax dhibaataa dareemo asxaabtada si ay u soo laabtaan. dhab ahaantii ma haysto wax biyo ah, wax hoy ah ama cunto ah. bal ka waran qof ku nool meel aan cunto ka jirin, biyo ka jirin, hoyna aan ku lahayn. xadhiggan ayaan qaadan doonaa si aan ugu soo goosto midhaha qumbaha, laakiin labaha waayo aad ayuu u dheeryahay geedku. tani aad ayay u dhib badan tahay, hore ayaa u soo sheegay. rafaad badan kadib waa gaadhay hadafkii, waana soo qabsaday. laakiin waxaa u muuqataa inaanan markan oo keliya igu filnayn oo dhowr xaba ayaan u baahanayaa inaan muddo ku noolaado. hadda markaan cabo waan ku noqon doonaa si aan qaar kale u soo goosto. waxay ila tahay inaan kaga maarmi karo biyaha geedka qumbaa, sababtoo ah biyo ma haysto, isagaana ay geli doona booska biyaha. waxaa la gaadhay habeennimo. waa daruuri inaan helo meelaan caawa u haydo dhaxanta jirta awgeed. waan dhameeyey meelaan caawa u hoyan karo. waxay la tahay inaan ammaan ku heli doono. see tihiin asxaabtaydii iyo warrama, soo nabad kacdeen? aniga waa soo nabad kacay, waana fiicanahay. keliya tabahala yaryar ayaa xalay dhibay. wax badanna ma qabo, alxamdulilah waan ka fiicanahay. challenge-geena ayaa sii wadan doonaa. waxaanaynu maraynaa maalin labaadkii. ugu horreynta guriga ayaan iska dhammaystiri doonaa si aanay mar dambe igu dhicin waxaa laygu dhacay iyo bahalihii xalay toolay dhibay. waxa ugu muhiimsanan hadda u baahanahay waa dabka. waa inaan dab helo, waayo daruuri ayuu aad iigu yahay. habeenkiina aad ayaan ugu baahanahay dabka. waxyaabo badanna waa iga caawinayaa. kalluun ayaan rabaa hadda inaan soo dabto. aad ayaan ugu dhibtooday inaan shido dabkan, laakiin ugu dambayntii waan ku guulaystay. aad ayaan u farxsanahay hadda, maadaamaan in hore kusoo guuldaraystay inaan shido dabkan. hadda waa inaan doonto waxaan cuno. kalluunkan ayaan hadda soo qabtay, inkastay waqti dheer igu qaadatay inaan soo qabto. isaga ayaan ku cashayn doonaa, kadibna waan iska seexan doonaa. challenge-geenii keliya waxaa ka hadhay hal maalin. halkaa maalin ayay wada joogi doonaa, kadibna waan isaga tegi doonaa meeshan. run ahaantii aad ayay u adagtay nolosha halkani. qof inuu keligii ku noolaadana wax suuragala ma aha. aad ayay u adag tahay dhab ahaantii. murayadii hablaha qurux lagu qanaystay macaaleeye